ninka dunida ugu taajirsan Elon Musk baa waxa uu sheegay Soomaaliya inuu ka hirgelinayo internetka cusub ee high speed-ka ah ee Starlink. Elon Musk baa bartiisa Twitter-ka ama X-ka loo yaqaan waxa uu soo geliyay sawirkan postigani oo calanka Soomaaliya dhinac u yaala dhinaca kale ee calaamadii Starlink isagoo markaa sheegay in dawladda Soomaaliya gaar ahaan hay'adda International Communication Authority af Soomaaliya lagu yiraahdo hay'adda isgaarsiinta qaranka inay u ogolaatay oo ay siisay ogolaashaha in internetkiisa uu ka howlgalo Soomaaliya. Haddaba hadda adigan idaawanay su'aal baa maskaxdaada ka guuxaysa. Su'aashan ku sheegaa wax kala maahan. Waxaad isweydiinaysaa internetkan ninka dunida ugu taajirsan Elon Musk uu leeyahay Soomaaliya ka hirgelinayaa iyo internetka hadda aan haysano walaalow muxuu ku kala duwan yahay? Internetkan muxuu yahay? Haddaba isug anaa ku kala dhigaya. Samatar wuxuu yiri dhankalaad u socotaay dhagalay wax maqal wax baro waayahay. Satellite-kan horta waxa la sameeyay 2019 waa active laga dhigo hawada loo diray. Hawada hadda waxa ku jira 6,000 oo xabo. Marka farqiga u dhaxeeya internetkan hadda aan haysano iyo internetka hadda Elon Soomaaliya noo geynayo barwaaqa dhici doonte waxa ay ku kala duwan yihiin ku sheegayaa. internetka hadda annaga aan haysano adduunka markuu wax u soo dirayo macnaha inta uu cabirka dhulku u jiro distance-ga waa 621 mile meesha hadda aan fadhiyo iyo isaga inta isku jiraan Jarmalka Frankfurt gurigeyga hadda meesha aan joogo iyo internetka hadda aan isticmaalayo waxa isku jiraan 621 mile midka hadda Soomaaliya la geynayo korkay hadduu hadda soo istaago waxaan isku jiraynaa 341 mile maxaan ku iri 341 mile midka Soomaaliya la geenayaa adduunka u jiro dhulka kan hadda Soomaaliya ay haysatana 621 mile yaa dhow marka midka hadda Soomaaliya la geenayaa dhow. That's why high speed way internetka uu yani daatada u soo dirayo dhulka midka hadda aan haysano waqti badan bay qaadanaysaa laakiin midka hadda Soomaaliya la geenayo ilbiriqsi wax ka yar buu kugu imaanaya. internetka hadda Soomaaliya la geen doono halkii saac internetka hadda Soomaaliya la geen doono Elon Musk uu geen doono halkii saac waxa uu jarayaa ama uu wareegayaa 17,000 oo mile. maxaan ku iri halkii saac waaya halkii saac wuxuu soconayaa 17,000 oo mile. magaalada Muqdisho marka diyaarad ka raacdo oo aad Addis Ababa ama Nairobi ama Istanbul u socoto caadiyan diyaaradaha adduunka hawadu marka ay galaan 500 ilaa 600 oo mile bay saacadii jaraan. waa hada diyaarad aad aragtay Muqdisho aad ka tagay Hargeysa ka qadeynaysaa. Hargeysa maxay tahay? Muqdisho inta ka tagtaba London ka qadeynaysaa. diyaaradda aad aragtay iyo xawliga ku socoto baa waxa ay saacadii soconaysaa inta u dhaxaysa 500 ilaa 600 oo mile. Satellite-kan meequu soconaya ma taqaanaa 17,000 oo mile taa oo macnaheedu tahay adduunyada oo dhan from east to west from north to south adduunka oo dhan wuxuu ku soo marayaa hal saac iyo bar. ilaahay muxuu bini'aadanka caqli siiyay xikmad hal saac iyo bar ayuu dunida oo dhan internetkan ku soo wareegaya awood u leeyahay. marka meeqa xaba adduunka hawada loo diray 6,000 loo diray qalabka uu ku shaqeeyay iyo qaabka uu ku shaqeeyay dhulka marka waxa yaal internetkii iyo waxa yaal wax la yiraahdo ground station. adigii marka waa kan gurigaagii baad joogtaa internetkii waad u baahan tahay waxaad haysataa laptop computer kale ama taleefankaagii tusaale ahaan marka waxaad rabtaa YouTube inaad daawato waxaad u baahan tahay fiilooyinka la xiriirinayay iyo hormuud baa internetka iga jaratay iyo box baa meel gelinaya iyo waxa ma jirto waa without wireless uma baahnid batuulada Soomaaliya ugu dambaysa all you need waxaad u baahan tahay koronto bisa u baahan tahay haddaad haysato bahaladan qorraxda ma aragtay ee solarka it's enough. waxaad u baahan tahay marka wax la yiraahdo kan waxa la yiraahdaa user terminal kana waa taqaanaa waa boxkii wifi qof walba guriga u yaala wifi boxada guriyaha meelaha darbiyada kugu dhagan ka iyo waxaad u baahan tahay user terminal wax la yiraahdo. waxaad sameynaysaa marka Google-kii baad gashaba ama TikTok-kii baad gashay internet baad u baahan tahay isla markii device-kaaga wuxuu fariin u dirayaa boxkii wifi-ga marka wuxuu isagana boxka fariin u sii dirayaa user terminalka boxka adiga ku yaala guriga dhinaciisa ku yaala waa sida diishko kale kan balkan user terminalka waa sida diishko kale satellite ku soo jiidaya kan marka fariin buu dirayaa fariintu wuxuu u dirayaa satellite-ka markuu u diro satellite-ka wuxuu fariin u soo dirayaa ground station-kii
Elon Musk oo iska lahaa ground station wuxuu fariin u dirayaa internetkii marka fariintii soo celinaya ground station ku soo celinaya ground station-kii baa fariin diraya kor u tuuraya internetkii wuxuu u dirayaa hawada sare satellite-kii baa marka adigana wuxuu ku soo dirayaa isla daatadii aad rabtay inaad wax ku daawato boxkan ku soo ridaya boxkan markuu ku soo rido boxkan isla markii wuxuu u gudbinayaa boxkii wifi-ga guriga ku yaalay boxkan wuxuu u sii gudbinayaa internetkii daatadii aad dalbatay taleefanka ama computerka marka aad isticmaalaysid YouTube-kii Facebook-kii TikTok-kii sidii ku daawanaysaa marka muxuu kaga fiican yahay waxaan aad isticmaalaysid hal xabo maahan waa 6,000 oo xabo kana markuu ku dhaafo kii kala imaanaya waxa lagu yiri halkii xababa wuxuu wareegayaa 17,000 oo mile taasoo micnaheedu tahay 17,000 oo mile waa imisa mataqaanaa saacad iyo bar buu adduunyada dhan ku wareegayaa baan ku iri waxay noqonaysaa البريكس waa ay ka yar tahayba macnaha kan marka uu ku dhaafo kan kale intuu kaaga imaanayo البريكس waa ay ka yar tahay waxay noqonaysaa hal millisecond wax la yiraahdo millisecond-ka waa eber hal second second-kii 60 ka xaba ahaa baa waxa laga dhigay eber hal taasoo micnaheedu hadda haddii aan iraahdo waa hal second ma dhaafo 1 2 3 4 kan waa uu ka sii yar yahay waxa lagu yiri waa 0.001 second taasoo micnaheedu tahay marka aad tiraahdo 10 xaba ku dhaaftaba marka aad tiraahdo 10 xaba ku dhaaftaba tiraahdo 20 ku dhaaftay internet waad ka dhargay waa micnaheedu waa high speed internet saa u fahma marka internetkan Soomaaliya markii laga active gareeyo oo Soomaaliya ka hirgalo tuulada ugu shishaysa ee Soomaaliya marka aad joogto waxaad u baahan tahay solar inaad soo gadato ama motor guriga koronto xataa uma baahnidba ilaa meel fog baad degan tahay moogtahay oo aan koronto gaarin motor baad magaalada ka soo gadanaysaa ama waxaad soo iibsanaysaa solar aad u weyn qorraxda dhiganaysaa labadan box aad soo iibsanaysaa marka user terminal iyo router bahalkan la yiraahdo wifi-ga u sii gudbinaya device-ka mobile-ka ama computer-ka aad isticmaalaysid labadaas baad soo iibsanaysaaba lacagtan aad ka bixinaysaa bishii wixii marka shirkadda marka isticmaalaysid dawladda Soomaaliya ha noqoto shirkadda ama shirkad kale oo barayfada oo dawladda Soomaaliya ka soo qaadata ha noqoto lacagta aad ka bixinaysaa waana raqiis oo ka raqiisiya midka hadda la isticmaalo uma baahan doontid barays meel la geliyo iyo boxki wifi-ga inta aad xambaarto darbiga aad ku dhajido iyo oo tiraad alla anteenadii waa yar tahay anteenadii waa gaaban tahay la ima maqlo live-ka ugu dhagaya uma baahan doontid 17,000 oo mile buu saacadii jaraya kan markuu ku dhaafo kii kala ku imaanay inta aadan dhigin kii kala ku imaanay macnaha midka hadda adiga aad isticmaalay البريكسiga soo socda ma isticmaali doontid mid kala kugu imaanaya uu ka sii gudbaya internet hadda aan isticmaalay adduunka inta uu jiro oo ka soo soqeeyaa midkan waa 341 mile buu noo jiraa ka hadda isticmaalaydina wuxuu ku jiraa 621 mile internetka haddii Soomaaliya la keeno khalaas horumar baan gaarnay page-kana iska leh inta aan u qeylinay falowd hayla dhaaf iyo falow garay